ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa waa barigii hore ee saaka howlgalla amniga lagu xaqiijinaya ka sameeyay deegaano badan oo saacadihii la soo dhaafay ay ka saareen kooxda al-shabaab kuwaas oo ku yaala gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Kumaandoosta Danab, kuwa Gorgor iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa haatan gacanta ku haya deegaanada kale Ceellehle, Nuur Faarax, Berxaani, Baardheere, Booco, Garasiyaani iyo deegaano kale oo dhacajiinka webiga ee mara gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya General Odawa Yusuf Raage iyo wasiirka gaashaaniga Cabdulqaadir Maxamed Jaamac ayaa xalay jiida hore ee dagaalka kula hoyday ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ee sida wadajirka ah dagaalka uu la jira al-shabaab. Waa howlgalka kaliya ee ilaa iyo haatan si xawliya ku socda howlgalka ka socda gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, waxaana howlgalkan iska kaashanaya beelo ka soo horjeeda kooxda al-shabaab iyo ciidanka dowladda oo gacan siinaya dadka deegaanka ee dagaalka adag kula jira al-shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan. Dhinaca kale, wararka waqtigan ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in qarax mina la beegsaday ciidamo huwan oo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya kuwaas oo shalay gaaray deegaanka Nuur Faarax oo ka mid ah deegaanada laga saaray al-shabaab. Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in qaraxaas ay ku dhinteen ugu badnaan 2 askari oo ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya ee gaariga ay saarnaayeen qarax la beegsaday. Taliyaha ciidanka dhulka ee militariga Soomaaliya General Biixi oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in ka badan 100 dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay howlgalka wali ka socda gobolka Hiiraan. Dhinaca kale waxaa wali sii socda howlgallada ka bilaabmay sida Cadakibir, Baxdo, deegaanka Jaw iyo deegaano kale oo ku dhow magaalada Ceelbuur iyo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Deegaanka Cadakibir oo ka mid ah deegaanada uu ka curtay kacdoonka ka dhanka al-shabaab ee dadka deegaanka ay hogaaminayaan ayaa shalay galinkii dambe waxa weerar madaafiic ku qaaday kooxda al-shabaab inkastoo wali aan la xaqiijin khasaaraha madaafiicdaasi ay geysteen. Ha yeeshee dadka deegaanka sida ay ku soo waramayaan waxaa halkaasi ka dhacay iska horimaad kooban kaas oo u dhaxeeyay dadka deegaanka iyo ciidanka daraawiishta Galmudug oo iskaashanaya iyo al-shabaab. Ma jiro ilaa iyo haatan in laga soo xigan karo khasaaraha rasmiga ee dagaalkaasi shalay ka dhashay. sidoo kale ciidanka militariga Soomaaliya ayaa saaka miinooyin waxa ay ka saareen tuulooyin iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya gaar ahaan deegaano hoostaga degmada Ceelbuur oo ay gaareen ciidanka dowladda kuwaas oo ka baxay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. guud ahaan gobolada dhexe ee dalka waxa ka socda dagaal u dhaxeeya dadka deegaanka iyo al-shabaab, waxaana sidoo kale dagaalka kaabaya dadka deegaanka ciidanka militariga Soomaaliya.